qaar ka mid ah warbaahinta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa hambaliyay cafiska madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sii daayay labadii wariye ee muddooyinka u dambeeyay ku xidhnaa magaalada Hargeysa oo kala ahaa Cabdi Jabbaar iyo Maxamed Ilig. waxaana madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday inuu sii daayo wariyaasha kale ee xidhan ay ka mid yihiin Samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon iyo Xamse Geele iyo Ridwaan oo ka tirsanaa kamaramaanada telefishinka caalamiga ee Home Cable. waxaana madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsadeen inuu iyagana cafis madaxweyne u fidiyo. waxaanu codsanaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kastoo gacan ka geysan kartaan ka codsanaynaa inay sii daayaan wariyaasha xidhan ay ka mid yihiin Cabdimaalig Muuse Coldoon, Xamse Geele iyo kamaramaanka waa gacantii aad ku duuleysay shalay tobanka musharax ahayd ee aad halka doonaysay ku gaarsiisay warbaahintu. tuba xasuuso waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad been sii deysay wariyaasha. waxaan maanta shirka jiraayad u qabanay inaanu kala qayb qaadano wariyaashii la sii daayay farxadooda maadaama laga soo daayay xabsiga Maxamed Ilig iyo sidoo kale Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen. sidoo kale waxaan ka xunnahay in xariga lagu sii hayo Cabdimaalig Muuse Coldoon, Xamse Geele iyo sidoo kale Maxamed oo kamid ah warbaahinta isla markaana aan madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqayno in iyagana uu cafis madaxweyne fidiyo maadaama intii awoodooda ahayd xariga ay ku qaateen. annaga warbaahinta gobolka Togdheer waxaan soo qalkan suuqin inaanu ka hadalno inaanu sheegno inaanu ku faraxsanahay cafiskii uu fidiyay madaxweynaha Soomaaliland ee labadii saxafi Maxamed Ilig iyo Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen isla markaana aanu ka hadalno xariga iyo xabsiga lagu hayo saddexdaas suxufiye xidhan Cabdimaalig Muuse Coldoon ugu horeeyo, Xamse Geele iyo Maxamed Arido. waxaanu madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland soo jeedinaynaa inaanaan ku faraxsanayn, inaanaan ogolayn, inaanaan aqbalayn in xorriyadda hadalka iyo xariga saxaafadda inay mar walba saasi ula soo noqoto. waxaanu xukuumadda uga digaynaa inay waqtigeedu ku dhamaysato xariga iyo la dagaalanka xorriyadda hadalka oo si gaar ah warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland loo beegsanayo. intii xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi uu joogayna waxa meel madow oo god madow lagu riday xorriyadda hadalka iyo madax bannaanidii saxaafadda madaxa bannaan oo 4 sano iyo barka oo xukuumadda ay joogtayba la beegsanayay warbaahinta madaxa bannaan. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ugu baaqaynaa oo aanu ka codsanaynaa inay cafis madaxweyne u fidiso in la sii daayo saddexdaa wariye, saddexdaa saxafiye xidhan oo xukun sharci darraa cadaalad darraa ku dhacay oo aanaan raalli ka ahayn oo aanaan ogolayn oo aanu ka xunnahay. oo waxaanu ku soo gabagabeynaynaa inaanu codsi weli aanu xukuumadda ka sugayno in Cabdimaalig Muuse Coldoon iyo labada saxafiye kale xidhanba inay xukuumaddu sii dayso ayaanu ka codsanaynaa. haddii codsiga madaxweynuhu waqtigiisa ku dari waayo waxaanu arkaynaa in si gaar ah loo beegsanayo warbaahinta madaxa bannaan gaar ahaan gobolka Togdheer. Cabdimaalig Muuse Coldoon si gaar ah noo saameynayo oo tan iyo intuu xidhnaano haldaynay aanu codsanaynay in la sii daayo la aqbalo. haddaan nahay warbaahinta gobolka Togdheer waxaan maanta halkan ka sheegaynaa inaan ku faraxsanahay xorriyadooda ay heleen labada saxafiye Maxamed Cabdi Ilig iyo Cabdi Jabbaar Maxamed maalintii shalay ahayd xorriyadooda dib u helay muddo 4 biloodana ku xidhnaa magaalada Hargeysa. waxaan isku doonaa sidoo kale inaan isku taagno wariyaasha kale xidhan ee ugu horeeyo Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ay xabsiga ku wada jireen labadaas saxafiye iminka la soo daayay maalinna la wada xukumay qolna ay ku wada xidhnaayeen xabsiga Hargeysa. sidoo kalena isku hal qodobna lagu wada xukumay oo lagu wada xukumay dhammaantoodba in ay warar been abuur faafiyeen. aad baan uga xunnahay in Cabdimaalig uu ka hadho suxufiyiinta shalay soo baxday ee madaxweynuhu cafiska u fidiyay isagoo wax ka dheeriya ama xukun dheeriya ama qodob dheeriyo ka duwan oo loo adeegsaday aanay jirin balse dhammaantood baa isku mid ahaayeen. aad baan uga xunnahay. sidoo kale labada saxafi Xamse iyo Maxamed iyagana xarigooda aad baan uga xunnahay. waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku shaqo leh oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliland in saxafiyiinta madaxa bannaan ay xorriyadooda dib u helaan. inaanu ku faraxsanahay wariyaasha maalintii shalay ahayd xukuumadda Soomaaliland xabsiga ka sii deysay oo waliba naloo sheegay madaxweynuhu inuu cafis u fidiyay. runtii waa arrin aan ku bogaadinayno xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi. mar labaadka madaxweynaha waxaa sharaf u ahaan lahayd oo iyadana annaguna aad u jeclaan lahayd in naloo soo saari lahaa ama xorriyadoodii la siin lahaa wariyaasha kale ah Cabdimaalig Muuse Coldoon, Maxamed Arido iyo sidoo kale Xamse Geele. runtii madaxweyne codsi mar labaad waxaan kaa codsanaynaa wariyaashaasi hadda xabsiga ku hadhay inaad sidii kuwii shalay cadaaladda waxaan leeyahay cafiska aad u fidisay kuwaana inaad noo soo dayso. horreyn warbaahinta gobolka Togdheer waxay ku faraxsan tahay xorriyadda ay heleen wariye Maxamed Ilig iyo Cabdi Jabbaar
sidoo kale warbaahintu waxay weliisha ku haysaa xadhigga wariye cabdimaalig sheekh muuse coldoon iyo wariye xamse geelle iyo sidoo kale muxyidiin oo ka mid ah kabarmaanada Home Cable TV. warbaahinta gobolka Togdheer waxay u soo jeedinaysaa xukuumadda Somaliland inay wariyaasha xorriyadooda u soo celiso. xukuumadda Somaliland waxaan ugu baaqaynaa inay ilaaliso xorriyatul qowlka wariyaashana ay u soo celiso xorriyadooda.